beesha maxamuud cali oo ka tirsan beelweynta baharsame ayaa shir aribariga ku qabsatay degmada kalabeydh ee ka tirsan gobolka sool waxaana kasoo qaybgalay garaadka guud ee gobolada sool sanaag cayn iyo gobolka doolo uqaal waxgala siyaasiyiin galaasanto iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. madasha ayaa ahayd mid heer sare loo soo agaasiyaa beeshu ay kaga tashanaysaa arrimaheeda gaarka ay ugu horeyso nabadda iyo midnimada iyo wadajirka. waxaana ugu horey halkaa ka hadlay uqaasha beesha maxamuud cali iyagoona ka warbixiyay ujeedka shirka aribari ay u qabsadeen. madashan waxa aanu u qabanay waa allabari ay leedahay beesha maxamuud cali. dadkan soo jiibay gobasha tan sharafta leh aan ku marti qaadnay annagoo ah beesha baharsame isla markaana si laga sheekeeyaa maxamuud cali. markaa leeyahay maxamuud cali shirka kan waa shir baharsame marka horeysa. baharsame way ka soo wada qayb gashay meel kasta way uga timi shirkan xagga hawsha mooyaane magaca waa baharsame waa wada leenayaan. markaa sidaa la sheegay saaxdheer shirkii saaxdheer lagu shiray 3 meelood kale iyo qolo walba hawsheeda soo qabsato shanta reer ee mataanaha ah maalintaas iyagu hawsha tan u midoobeen si ay ugu midoobeenna wataa maanta halkaa la iskugu keenay baharsame iskugu keentay marti sharafta kalena ka soo qayb gashay arrintii halkaa ka dhalatay shirkii hadda qorilayna wuxuu yahay kaaba u yahayo laba qodob. waxaan u malaynayaa halkan maqsadkii dadkan ilahaa waa la sheegay waa allabari. ilaahay baa wuxuu leeyahay man jaa bilxasanati falahu 10 amhaalihaa waman jaa bisayi'ati falaa yujzaa ilaa milahaa. allabarigani waa allabari uma baahna hadalla kale. rag baa lahaa waa baharsame madashani waxay u muuqataa waa madal dhulbahanto wey. madal dhulbahanto waayo waxaa muuqanaysa wejiyo badan oo beelaha kala duwana meesha ka muuqanaya. aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa una salaamaynaa macsuunkanay soo gaadheen naga soo ajiibeen ilaahayna ha ka abaal mariyo. talabaad meeshan waxaan iskugu ka odhanayaa allabarigani wuxuu daba socdaa allabarigii qoriley iyadoo lagu soo qaatay nabadgelyada iyadoo lagu soo qaatay geesaha hareeraha dadkeena ka xiga qof iyo lababa in dadka islaamka nabad lala qaato lagu soo dhaweeyo gobol lagu wada fadhiisto. aad iyo aad baan taa ummad. waxaa iyaguna dhinacooda ka hadlay uqaashii waxgaradkii kasoo qaybgalay shirka aribari ay beesha maxamuud cali ku qabsatay degmada kalabeydh. qoladiina tan allabariga dhigtay xogaa waxaan idinka cudurdaarayaa waxaad ku noqnoqoteen shirka iyo allabariga waxaad u qabateen. horta shirkigaas ka saaro oo anagu laftayadu waxaanu idin eegaynaa sida aad u sheegaysaan war nimankan maxay soo wadaan war maxay dilaacin doonaan war maxay ka hadli doonaan. mar haddaad tiraaheen shirka kan wuxuu daba joogaa turxaan bixintii wixii laynagu lahaa waxaynu lahayn wax ka baxsani ma jiraan tiibaanu igala qaadana. intii ka soo qayb gashay iyo intii ka hadashay oo waxa wanaagsan halkan ka jeedisay oo ay nabadgelyadu ugu horeyso waan ku boorinaynaa. intii soo qabanqaabisay iyo reer kalabeydh iyo beesha tan afka iyagu magacii hore u bartay maxamuud cali aan idhaahdee aad baan idinku hambaliyay. ilaahay baa mahadle waxaa mudan beesha allabarigan dhigtay ee baharsame ee baadhiga maxamuud cali afka laga qarin maayo waa la caddaynayaa. allaha karaameeyo. shirkan waxaan uga mahadnaqayaa ilaahay baale dadkii u soo abaabulay ee sidan quruxda badan u soo abaabulay runtii marna looma hambaliyeyn. waa shir aad u culus runtii oo aad moodo tijaabo weyn inay ahayd oo laga gudbay. raggii soo abaabulay iyo raggii isku dubaridayba aad bay u mahadsan yihiin. waxaa weeye waxa la yidhaahdo midnimadu islaam iyo gaalba maaha muslimka keliya. muslim iyo gaalba midnimadu waxay u yeeshaa sharaf iyo cizi. dadka jecel baanahay anigu dadka guud ahaan deegaanka dadyowga ay ku nool yihiin aynu ku abtirsannaa iyo kuwa aynu deegaanka wada degannahayba dadka aaminsan baanahay inay hal qabiil yihiin. marka midnimada in la ilaaliyo waa waajib diiniya weeye.
shirkiinu waa shir fiican ilaahay ha barakeeyo martifiic Soomaaliyeed baa joogta culimo leh qabaa'ilo kale leh alla bariga kan waa la bari maqbuula way ilaahay waa noo aqbalayaa beesha dhigtay oo ka tirsan beesha Maxamed Garaad Maxamuud Cali waxaan leenahay inta alla bari ka soo shaqaysay iyo inta xoolahooda ku bixisay iyo inta xoogooda ku bixisay ilaahay ha barakeeyaan leenahay alla barigan ilaahay noo wada aqbalo iyagana ha aqbalo waxaa gebagabadii madashaa soo afmiray garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag Cayn iyo gobolka Doolo Garaajama Gardari isagoo la dardaaran iyo ducaba u soo jeediyay beesha Maxamuud Cali ee albariga ku qabsatay deegaanka Karabeed ee gobolka Sool tolkan maanta alla bariyay xoolaha u qalay ee dhiiga badan u daadiyay ilaahay dartii maxamuud cali mid baan oranayaayo horta waa ku mahadsantihiin odaygii maxamuud cali magaciisa laga gudbay in aad laabta gashataan oo weynaysaan oo kor u soo qaadaan allah idin weyneeyo insha allahu tacaala odayga magaciisa ilaahay hadduu kuu roon yahay waa meel lagu ururo wacan weeye meelbaan baad ku ururteen si wacan allah idin ururiyo geliyada dhinac walba nabadgelyada ilaahay inoo xidhay in la carsheeyo ama la taabto ama wax laga sheego ma ay jirto nabadgelyada waynu wada ilaashanaynaa waxaynu ku ilaashanaynaa danteennaa ku jirta nolosheennaa ku jirta nabadgelyadaasi inay u furanto ma ogolaanayno Khadar Turabi Somnius Chief degmada Karabeed gobolka Sool